maanta isu soo bax ballaaran oo muuqday dholatus waxa isugu soo baxay taageerayaasha xisbiga UCID ee magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera oo ay horkacayaan guud ahaanba 22 xildhibaan iyo gudoomiyaha gobolka ee xisbiga UCID ee magaalada Berbera ayaa guud ahaanba ku soo wareegay jidadka kala duwan ee magaalada Berbera iyadoo ay dadka qaarna baabuur saarnaayeen dadka kalena ay lugeynayeen waxaanay magaalada ku soo dhexmareen lug ay ku muujinayeen xuduudda taageerayaasha ay ku leeyihiin magaalada madaxda gobolka Saaxil ee Berbera dholatuskan oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb qaatay isla markaana hadallo kala duwan ka jeediyay xildhibaanada ama murashaxiinta ka sharaxan xisbiga UCID iyagoo guud ahaanba ka waramay waxyaabaha ay doonayaan in xisbi ahaan lagu doorto si ay bulshada ugu qabtaan iyo dareenkooda waxaanay tilmaameen in ay bulshada magaalada Berbera horumar ballaaran ka sameyn doonaan haddii loo doorto kursiyada golayaasha deegaanka ee ay u tartamayaan gudoomiyaha ololaha ee xisbiga UCID ee gobolka Saaxil Cabdishakuur Cidin ahna murashax ka sharaxan xisbigaasi iyo gudoomiyaha gobolka Marwaraada Axmed Yaasiin taageerayaasha xisbiga UCID waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga mahad celinayaa dareenka dhabta ee dadnimada leh ee qiiradu ku jirto ee uu bacadka u soo lugeeyay wuxuu doonayaa waa isbeddelka inay helaan baan ilaahay ka baryaynaa ilaahu shacabowga naga hay Berbera isu tashatay halkaa ka wadbandila ama isu soo baxan oo ahaa kii ugu horeeyay ee xisbiga UCID oo ku bilaabo ololaha doorashada ayaa laga dareemay guud ahaanba gobolka Saaxil Cabdikariim Saciid Saalax Hon Cable TV Berbera.